الإسلامية. وكان دكتور عمر إيمان ونوسو جيدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. maanta waxaan doonaynaa inaan ka hadalno maadaama barnaamijkii aan soo wadnay qeybtii ugu dambeysay dimuqraadiyada iyo shareecada islaamka waxay isku khilaafsan yihiin aan in badan kaaga soo hadlay. yaa maanta waxaan jeclahay in aan kugu labeeyo shareecada islaamka wanaagyaalka ay leedahay oo wax adduunyada qaanuun iyo wax lamid aan laga helaynin aan rabaa inaan ku cadday. waxaa khata ah sida dadka ay yidhaahdaan shareecada islaamka iyo qawaaniintoo laysla muqaaranay, taas baa dembi bay noqonaysaa oo ilaahay sharcigiisa wax la barbar dhigi kara ma jira. nin baa wuxuu ku leeyahay waxaan ku takhasusay ashariica waalqaanuun oo labadii in laysbarbar dhigo oo xugum kastaba markii lasoo qaato shareecada maxay ka tiriyey, qaanuunkana muxuu ka yidhi, labadooda midkaan yaa ku fiican. haddii aad tiraa xataa maanta shareecadatan ku fiican, maalin baa imaanaysa midaan qaanuunkaa kaga fiican inaad tiraahdo, taasna waaba gaalnimo sideedaba. marka sidaa daraaddeed baa waxaan leeyahay shareecada islaamka mazaayada ay leedahay ama wanaagyaasha oo wax la wadaagsada ayna jirin, ayadoo aan ilaahay ka baryayna inaan noqonin dadka shareecada islaamka wax la barbar dhiga inay aan noqono. sidaa daraaddeed waxaan leenahay shareecada islaamka waxyaalahay dheerta waxaa ka mid waxa meesha jiroo dhan alkamaal wax la yidhaahdo, waa dhammaystiran tahay shareecada islaamka. waxay ku dhammaystiran tahay waxaa laga helayaa bani aadamka waxa uu baahan yahay oo dhan aa laga helayaa, oo mabaadi ah, oo nadariyaad ah, oo xugum ah, oo caqiida ah, oo tasawur ah. intaasoo dhan waa laga helayaa waktiga la joogo iyo wixii na soo dhaafay iyo wixii naga dhimanba. waxaan saas u leeyahay shariicada islaamka ah ma aha keligeed, xugum keligiis ma ah. caqiidadii baa ka mid, akhlaaqdii baa ka mid, xugumkiibaa ka mid, makaarim alakhlaaqa ka mid. bal u fiirsa marka shareecadii islaamka ahayd waxay samaysay qofkii muslimka waxay siisay tasawur oo saxiix ah. ilaahigii abuurtay, ilaahay subxaanahu watacaala waan iskayn baray. waxaunan iskayn baray waxa weeyaan sifaadkiisi iyo awoodiisi iyo afcaashiisa kownkan ta'hiiraadkii uu waxu noogu sameeyey ou na tusiyo. wuxuuna yidhi waxaas markaad aragtaan ilaahay inuu jiro ou adinka idiin abuurtay ugu daliishta. marka ilaahay uun iskayn baray oo min khilaali sifaatihi iyo qudradiisa iyo khalqigiisa iyo nicmadiisa iyo raxmadiisa iyo qudradiisa uun iskayn baray. ayib, ilaahay wuxuu na baray haddana kownkan hadda aan ku noolnahay meeshuu kasoo bilowday. ilaahay bifadlihi wa karamihi wuxuu noo sheegay qul ainakum latakfuruuna biاladii khalaqa alarda fii yawmayn watajcaluuna lahu andaada dalika rabu اlcaalamiin. waxaa laga soo hadlay ilaahay subxaanahu watacaala makhluuqaadkan oon annaga hadda indhaheenna ayn hayso oo ardada ka mide, oo samaawaadka ka mid tahay, oo waxa ku dhex jiroo dhan ay ka mid yihiin. yaa ilaahay wuxuu noo sheegay sida loo abuuray iyo marka abuurkooda ay bilowdeen iyo siday u kala horeeyeen, waalarda bacda dalika daxaha. sidaas buu ilaahay noogu sheegay. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogu daray qofka bani aadamkaa naftiisa. waxaa noola sheegay waktigaan kasoo bilaabanay iyo waxaan ku dhammaanayno iyo waxaan mari doonana ilaahay waa noo sheegay. bal u fiirso qawaaniinta bani aadamka ay boonbooninayaan waxyaalaha aynan laga helaynin baan hadda kuu sheegaya. bal ilaahay waan iskaan tilmaamay oo sida aan ku garan lahayn buu noo sahlay. ayib, kownkan aan ku joogno oo aan ku dhex noolnahay meeshuu ka bilowday, sida loo abuuray, si uu kala horey buu ilaahay noo sheegay. nafteenna alatii bayna jambayna xaqiiqadeeda iyo meesha ay ka timid iyo inta ay soo martay ilaahay waa noo sheegay. markaasaa ilahay wuxuu leeyay kayfa takfuruuna biاllahi wa kuntum amwaata faaxyaakum huma yumiitukum huma yuxyiikum huma ilayhi turjacuun. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala seed ilaahay ugu kufrinaysaan, waxaad ahaydeen wa kuntum amwaatan waxaan jirin, haddana ilaahay waa idiin noolay, haddana waa idin dilaya, haddana waa idin soo bixinaya, markaas baad isiga la kulmaysaan oo idinla xisaabtamaya. marka bal u fiirso shareicada waxay caddaysay annaga adduunyada markaan ka dhinmano maraaxisha aan marayn inaan dhimanayno meel barzakh la yidhaaho adduunyada iyo aakhirada u dhexaysa, wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yawmi yubcathuun. ilaahay uu yidhi barzakhaas waxa weeyaan markaad dhimatay qabriga lagu geliyo ilaa qiyaamada laysa soo saara inta udhexaysa barzakhaa la yidhahda.
barzakhaas baad ilaahay subxaanahu watacaala uu noo sheegay inaan marayn oo naftigeeda laysku cadaabaya ama layskugu naxariisanaya ninba siduu adduunyada ku ahay. haddana ilaahay wuxuu nasoo sheegay inuu na soo bixi doono qubuurta in laga soo bixinayo dadka o dhan, haddana in lala xisaabtamayo waxusila maa fi suduur, dadka qalbiyaashooda iyo waxay soo qabteen o dhan lagu xisaabtamayo, haddana laga abaalmarinayo. markaa kadibna fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir. bal u fiirsa intaasoo maraaxil leh. billaahi calaykum waxaan idin weydiinayaa waxa qaanuun iyo aad ku magacaabaysiin, bal fiiriyo oo qaanuunka adduunyada laleeyahay waa ugu dhamaystiran yahay, bal akriya oo inuu ilaahay kaaga sheekeeyo bal ka fiiri, inuu koonkan aad ku abuuran tahay inuu wax kaa fahamsiiya ka fiiri inaad ka heshid in kale, adiga bani aadamka maraaxisha aad soo martay inuu kaaga hadlayo in kale fiiri. keliya wuxuu tarkiizinaya qofka markuu weynaado hadduu waxaan qabto waxaana lagu samaynaya, hadduu waxaan qabtana waxaana lagu abaalmarinaa keli ah iyuu ka hadlaya. laakiin shareecada islaamka kamaalnimadeeda waxa weeyaan xaggii tasawurkiyaa lagaa dhisaya, xaggii ficilkiyaa lagaa dhisaya, xaggii camalkii baa lagaa dhisaya, xaggii caqiidadii baa lagaa dhisaya, xaggii waxa weeyaan kownkan dhan fahamkiisii baa lagaa dhisaya. waataan horay daa'iman u sheegnay oo qofkii waxaa ugu filan kownkan inuu ku fikiro, wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu lwaaxid. ilaahay haddii aad kownkiisa fiirisid inuu ilaah adiga ku yahay intaasun baad ka garanaysa. ayib, marka maadaama ayna waxaan qawaaniin lagu tilmaamaya ay waxay ka hadlayaan qofkii markuu mukallaf noqdo ee baaliq ou noqdo wuxuu sameeyey kadib yaa leeyahay sidaan bay tahay tan bay tahay. marka aniga waxaan leeyahay maadaama qofkii bani aadamka ahay maraaxil badan ou soo maray, qawaaniintina ayna ka hadli karin, shaqana ayna kulahayn, liannahu qawaaniinkii fulaan waktigaasuu dhimana ma dhihi karaan, liannahu awooddeedu way ka baxsan tahay. saas ba hadday tahay marka waxaan leenahay marxaladan qofka bani aadamka oo min waqti lbuluuq ilaa uu ka dhinta haddii layidhaha qaanuun haloo dhigo wax kale ma ahna waa bilalaqaysi weeyaan. waa xaqii ilaahay oo qofkii bani aadamka ay uu doonay inuu iska bilalaqaysto asigoo aan ilaahayna aan uga cabsanaynin, khalqigii ilaahayna aan ku ixtiraamaynin. wa ilaa waxa weeyaan waxaa lagu leeyahay qofkaan asiga hadda aad leedahay qaanuunan u dejinaya, war maraaxishaad ha soo martee wax maad ku tartay adiga. hooyadiis calooshiisa markuu ku jiray wax maad raashin ka siisa, markuu dhimanaya ma lagaala tashanaya, markii la cadaabaya ama janno la geynaya wax maad u qaban kartaa? jawaabtii waxaanu ognahay cid kasta inay leedahay maya, wax uban qaban karno. haddii arrinta sidaas ay tahay, haddii marxaladan intaa kale ilaahay maraaxishaas oo kale maamulay, marxaladan ayada u dhaaf oo ilaahay u dhaaf, marxaladana ilaahay u dhaaf ee adiga faraha kala bax. ulajeedada saaso marka marna waxaan la isbarbardhigi karin shareecada islaamka ah qofka bani aadamka ah laga soo bilaabo asigoo aan jirin ilaa janno iyo naar midkood uu ka galo, ilaa jannada iyo naarta naftigeeda waxa lagu hagaya waa sharciga ilaahi subxaanahu watacaala. marka shareecada sidaasay ku dhamaystiran tahay. walidaalika waxa weeyaan qofkii bani aadamka ah oo maanta adduunyada ku nool hadduusan garanaynin meeshuu ka yimid, wuxuu soo maray, hadafka loo abuuray, waxa uu dambayn doono, in la ciqaabi doono, in la abaalmari doono uusan kala garanayn, ninkaa waxaanu ognahay murug baa ku dhalinaysa. liannahu khawaa ruuxi baa lagu magacaaba, qalbiga dhamaa faaruq ah, ma garanayo bahaa-imtuu lamid yahay, meel uu ka yimid iyo meel uu socda ma garanayo. walidaalika dad badanoo waxaanu ognahay gaalada ah markii adduunyadan intay joogaan ay fikiraan naftooda ay wax fahmi waayeen meel uu ka yimid iyo meel uu socdo iyo wax uu dambay doono, inay samaynayaan in isdilaan o intixaar ay sameeyaan. maxay u samaynayan? liannahu nin aana waxba garanayn meel uu ka yimid iyo meel loo socdo aanan garanayn. adiga qof bani aadan ee maanta haddii lagu yihahdo iska soco ee aana lagu dhihin meel fulaan u soco, meel fulaanna ka soco, waxaana qaba haddaan lagu dhihin oo lagu yihahdo amar waxaan kusii inaad socotid, waxaan ognahay inaad daaraysid, inaadan socon karin, inaad naftaada nacaysid baan ognahay. sidaa daraaddeed dadka aan diinta lahayn ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay dhulumaad ku nool yihiin, mugdiyaalo. waxay mugdi ugu nool yihiin wax loo abuuray iyo wax loo wado iyo wax lagu abaalmarinay garan maayaan. walidaalika ilaahay kitaabkiisa dhegeyso, alif laam ra kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min adhulumaati ila annuuri biidni rabbihim ilaa siraati alcaziizi alxamiid. ilaahay wuxuu leeyahay kitaab baan kuu soo dejinay, waxaa loo soo dejinay litukhrija annaasa dadkoo dhan inaad ka saartid min adhulumaati mugdiyaasha ila nuur. waxaanu ogaanay dadka haddii ilaahay kitaabkiisa iyo shariicadiisa ayna jirin dad mugdiyay ku wada sugan yihiin,
xaqiiqada jirtana saas weeyaan min adulumaati ila annuuri yaa kitaabkaas looga baxaya waxaana taas ay ku timid biidni rabbihim waxaa loo baxayaa ilaa siraati alcasiizi alxamiidi allaha awoodda leh ee mahadale jidka uu noo tilmaamay yaa lagu dhacayaa oo kitaabkaasaa nagu ridayo oo wa ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuhu kitaabkaasaa jidka xagga oo dhabta a nagu hadayo oo ilaahay ou yidhi faman shaaa attakhada ilaa rabbihi sabiila ilaahay ninkii doona jidkiisa ha qaada baa layidhi marka sidaasaa ilaahay subxaanahu watacaala you noo sheegaya marka waxaanu ogaanay haddii qofkii ilaahay kitaabkiisa uusan haysanin adduunyada dulumaatun bacduhaa fawqa bacdin inuu ku nool yahay baa noo cadaanayso ilahay waxau leeyahay afaman yaclamu ana maa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma inamaa yatadakaru ulu lalbaab ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala miyay ogeen afaman yaclamu ninka og ana maa unzila ilayka min rabbika alxaqu wixii ilaahay agtiisa lagaaga soo dejiyo kitaabka ah ninka og inuu xaq yahay kaman huwa acma ninka aan hadda hadalkaas aanan garanaynin oo arrintaas ka indhalam isla mid yihiin inamaa yatadakaru ululalbaabi dadka qalbiyaasha fiyow oo wanaagsan leh unbaa arrintaas farqiga udhexeeyaa dareemi kara ilaahi subxaana watacaala u leeyay ayib marka farqigaas waxaa weeyaan shareecadii islaamka markii laga hadlayo ma aha adduunyada keliya inay kugu maamulaysa ma ah intaadan adiga jirin wixii aad ahayd bay kuu sheegaysa markii adiga lagu jirsiiyey wixii aad ku dhaqmi lahayd laguu sheegaya wixii markii lagu dilay kadib lagugu dhaqi lahayna waa laguu sheegaya marka sidaasay u dhamaystiran tahaye bal qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin dadka dhahaya qawaaniin iyo meel baan gaarsiinay bal qaanuunyaalkiina naga tusiya waktiga aan dhimanayno iyo warkii aan noolaanayn iyo waxa noo dambayn doona ninka sheegi karaya ayib raqamka labaad shareecada islaamka waxay kaga duwan tahay oo masaayaadka wanaagsan ay leedahay waxaa kamid e waxay leedahay qudsiya iyo ixtiraam macnaha qofka muslimka oo shareecada imaa aaminsan waa ixtiraamaya bal u fiirso ilaahay kitaabkiisa dadka ahlu cilmiga khayrka dhan waxa weeyaan waa ixtiraami qudsiya la yihahda iyo ixtiraam marka ma dhici karayso mar kastaba caalamulislaami waxaan shareecadaas ahayn inta la keeno ee dadkeeda ay ku guulaystaan ee ummaddii ay barwaaqa ku gaarto wax dhici karaya ma aha lianna waxa weeyaan ummaddii waxay og tahay inay caqiidadoodii iyo kiyaankoodii imin looga dhacay wabitaali ma dhici karta mar kastaba qaanuun iyo wax lagu xukmiyo dadkii in ay noqdaan waxyaalaha ummadda keeni karo inay maxabo iyo jacayl iskala dambayn inay ku helaan abadan ma dhici karayso maxaa yeelay qofkii waxay kala bixinayaan qofkii caqiidadiisii iyo shaksinimadiisii bay kala saarayaan baynamaa shareecada waxa weeyaan hal meel bay wax iskula wadaa ayib marka shareecada islaamka waxay kaga duwan tahay ma aha keligeed qofkii inuu shareecada u hogaansamo xaggii daahirka keli ah qudsiyada macnaheedu waxa weeyaan shareecadana waxa weeyaan afka waxaad ka leedahay iyo qalbigaada waxa ku jira iyo ficilkaada waxaad ka qabanaysa o dhan baa isku mid noqonay baynamaa waxaanu ognahay waxaan qawaaniinka iyo baktiga la yidhaahdo markii laysku xukmaya ninkii wax ku qaato iyo ninkii wax looga qaataba wuxuu ogyahay wax jira inaysan ahayn qalbigiisa kuma kadsoono kuma kalsoono mana aaminsano baynamaa shareecada haddii ninkii qofkii intuu shareecada u xuguntamo markii laga reeyo iyo markuu asiga reebo ou qalbiga kore qalbiga hoose uusan ka ogolaanin ee afka uu ka yidhaha waan ka ogolahay taas waxay gelinaysaa baabkii la yidhaha baabunifaaqa la yidhaha marka sidaa daraaddeed shareecada waxa weeyaan waxay kaga duwan tahay qofka muslimka ah siduu uu u aaminsan yahay shareecada oo qowl ugu aaminsan yahay oo ficil uu qabanayo yaa qalbigiisana ou la jiraa oo sidaas uu ixtiraamay sidaa daraaddeed ilahi wuxuu leeyahay falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ثuma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima bal u fiirsa mujarad ataxaakum ilaa sharci illahi kelima la rabo waxaa la rabaa inaad ilaahay sharcigiisa u xuguntantid wixii dhib oo naga dhex dhacay ثuma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta inayna culays ka dareemin ee qalbigooda uu ku wanaagsan yahay ilaahayna isu dhiibaan taasaa la rabaa laakiin waxa qawaaniinta laleeyahay ma heli karta mar qabo qofkiiba inuu afkii iyo ficilkii iyo qalbigii inuu ka ogolaado ma dhici karto marka sidaa daraaddeed shareecada islaamka way ka duwan tahay weligeedna isma keeni karaan waxaan calaa sabiil mithaal kugu siinaya siyaad baraayaantii dawladdiisa ay jiri jirtay keligiis ma aha dad badan baa hawsha la waday
waxaa dhici jirtoona wada ognahay dadkii soo gaaray maxaakimta markii la tago waxay maxaakim ku magacaabeen maxaakimna ma ahane markii la tago dadka qawaaniinta la degsaday baa lagu xukmi jiray siyaad barre waanu ognahay shareecada wuxuu ka yidhi markii dadka lagu xukmiyo markii qofkii xaqi ou diido ou in u dhaarta la doonayo meesha waxa yaallo baybalka ama kitaabka la qortay meesha yaallo laguma dhaari jirin musxafkiibaa inta lasoo qaada laleeyahay musxafkaan ku dhaaro aniga in badan baan wax ka joogaan arki jiray oo maxaakimta markii dad lagu xukminayo mar badan aan fadhiisan jiray waan aad baan ula yaabi jiro anoo nin yar ah waxaan la yaabi jiray war kitaabkii ilaahay maadaama asiga xukumkii ku yilaba layska dhaafay in lagu dhaarta maxaa keenay maxay u dhici waysay in buugga ay qorteen oo qawaaniinta ay ugu taallo in lagu dhaarta maxaa u diiday waxaan ogaanay xaqiiqa ahaantii haddii la yidhaha cid kastoo xaq diido baybalkan ama buuggan ku dhaara haddii la yidhaahdo inuu ku dhaarta culaysi lama ah waa isaga dhaaranaya beenba ha aat hadduu rabana xatay laakiin isagoo muslim ah haddii la yidhaha kitaabkii ilaahay ku dhaaro xaqaas aad inkirtay inaadan qabin ku dhaaro haddii la yidhaahdo inuu ka istaago ou xaqaas waa qabaa u yidhaahdo asoo aaminsan ilaahay kitaabkiisa hadduu been ku dhaarto inuu adduunya iyo aakhiraba ay khayr u dambaynayn marka waxa weeyaan caqiidadii bal u fiirso waxa weeyaan buuggi ma keeni karo kalsooni iyo ixtiraam iyo qadaris ma heli karo buuggii hadeertaan waxaad arkaysaa laysku xukumay birina asigoo qashin qubka lagu tuurayaad arkaysaa lianna wax ixtiraam uu leeyahay ma laha kitaabkii ilaahayna wax saa samayn kara ma laha hadda gaalada waxay samaysay oo laga hadli doono jumcada haddii ilaahay u yidhaahdo oo intii muslimiinta markay wax ka qaban weysay ay markaa ciil inay ku beesha ay doonaysay kitaabka ilaahay meel weyn ugu dhacday waxaanu aaminsanahay taasna inay tahay halaagooda inay gacnahooda ku samaysanayaan ayib marka waxaa anaga inoo caddaatay in shareecadii islaamka ah ay kaga duwan tahay waxyaalaha kale oo aan marnaba la barbarigi karin qofkii waxa weeyaan qalbigu kaga ixtiraamay asigoo keligiis abuu shareecada ixtiraamay cidna ayna ku qasbayn waxaasna waxa weeyaan waa caqiidada qofka muslimka uu aaminsan yahay subxaanahu watacaala ilahay uu ka aaminsan yahay ayib waxaad ogaataa qofkii muslimka haddii la yidhaahdo war xaqan adiga ninkaa idinka dhexeeyey shareecadii islaamka ahaa kaa xukuntay haddii la yidhaahdo ninkii wuxuu baxayaa asoo qalbigiisa ay ku dhamaystiran tahay ee aaminsan yuu baxaya baynamaa qofkii haddii la yidhaahdo kitaabkii ama buuggiyaa kaa xukmay haddii la yidhaahdo nin un laga afbari baad noqonaysaa ee xaqaadi waxaad leedahay wallahi maanta si aan kusoo dhacsadaan la ay xoog baa lagaga dhacay maana kuma qanacsani aad leedahay laakiin markii la shareecadii islaamka markii labadiina ladiin bandhigay waxaa caddaatay ninkaan inuu xaqi kaa leeyahay markii la yidhaahdo ninkii wax kale u banaan ma jira inuu yidhahdo samicnaa wa atacnaa mooye ayib marka sidaa daraaddeed ninka muslimka ah wuxuu og yahay haddii la yidhahdo xaqan asiga waa lagu xukumay qaado ousan lahayn wuxuu og yahay qaadigaas wax u xukumay oo buuggaas wax ugu xukumay inay ilaahay agtiis wax ugu xalaal noqonayn liannahu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa waxaa laga wariyey kamaa fi saxiixi albukhaari uu nebigu wuxuu yihi inakum takhtasimuuna ilaya walacala bacdakum alxanu min bacdin bilxuja faman qadaytu lahu bixaqi akhiihi shayئa fainamaa aqtacu lahu qidcata min annaari falaa ya'khudha bal u fiiri nebi moxamed wuxuu yihi haddii labadiin intaad iisoo xugantantaan aniga qof bani aadan ahaan ahay waxaa laga yaabaa midkiina midka kale inuu ka xujada ka muujin badan yahay oo aniga laga yaaba inaan u xukumo afbadnaashadiisaas iyo fasaaxadiisa inaan wax ugu xukumo yaa dhici karto haddii intaan wax u xukumo yousan u malaynin waxaan u xukumay inay xalaal u noqdeen hadduusan asal hore u lahayn haddii lagaa leeyahay xoolahaas hadduu nebi moxamed kuu xukumo hataa waxaadan lahayn haddaad qaadatid waxaad qaadatay qidca min annaar marka qofkii muslimka wuxuu og yahay ninkan qaadiga ah oo wax u xukumay wuxuu u xukumay inaysan wax u xalaalaynayn ee u og yahay fi nihaaya in ilaahay uu kuu qabsanayo marka qofkii waxaa dhacaysaba intaanan maxkamadii la gaarin inuu asiga isa soo xukumo uu yidhaha intaana waa laygu leeyahay intaana anaa ninkan kule sidaasna uu ku dhaarto asagoo caqiidadiisa iyo diintiisana dhaawacan u geersanayn walidaalika haddii islaamka la xukumo dacwada way bayaraanaysaa liannahu damiirkii iyo iimaankii iyo shareecadii oo lagu camal falay ummadda dhibkeena lakin haddii la yidhaahdo nin kastaba waxa waaye waxaa lagu xukumaa waa buug weeyaan nin kasta yaan lagaa dood badinin bu u leeyahay liannahu wax meesha yaalla waa wada baatil baatilnima inuu wax ku qaato waa doonaya ayib nuqdada saddexaad ee shareecada islaamka ay kaga duwan tahay waxyaalaha kale oo dhan
waxa weeyaan addawaam waalbaqaa. shareecada islaamka ah waxa weeyaan weligeedba daa'im bay noqotaa, weligeedba baaqi bay noqotaa, ma aqbasho in la rogrogo, maalinna halkaa naska lala aado, maalinna halkaa naska lala aado. annagu waxaanu ognahay qawaaniinta caalamka ka jirto oo ama ka jiri jirta ama ka jiri doonto, markii 6 bilood la joogabo waxaa leeyahay qaanuunkaas in la bedela haloo codayaa laleeyahy, haloo coday. bal u fiirso, waxa weeyaan ama waxaa leeyahay qaanuunka wuxuu ka hor yimid noloshii bani aadamka ah, in aan annaga iska bedelnay noqonaysaa, maanta dhan waa la bedelaya. sidaasay caado u leeyihin. shareecada islaamkana waxay la timid qawaacid waaweyn oo qofka bani aadamka oo dhan aan weligiisba uusan ka maarmaynin, ama ha jira zaman horo ama zaman dambe ha yimaado, mar kastaba waa u baahan yahay. inta kalena waxaa la rabaa aanan qawaaciddaas ka soo hartay oo nusuus cad aanan ahayn, in dadkii culummada ay ku dadaalaan, ijtihaad ay ku sameeyaan, ay muslimiinta xugum ugu soo saaraan, ayagoo ka tixraacaya ama ka ambaqaaday shareecada nusuusteeda iyo masaalixdeeda guud ay la timid, ayadoo laga ambaqaadaya yaa xugum kastoo dhaca yaa loo keenayaa, ama xaadid kastoo dhaca xugum baa loo keenaya. annaga hadda bal u fiirso, waxaanu ognahay meeqa dasaatiira la dhigay soomaaliya intay xornimada ay haysato, wax sii badan maha 40 sano weeyaan. intaas meeqa dastuur baa loo dhigay billahi calaykum. kaba soo qaaday dastuurkii hadda carta lagu sameeyey oo intaasoo bilood loo fadhiyey, markii Kenya shiraa lagu qabanaa la yidhi waxaa kii hore wax ka soo qaad ma laha, lama dhihin war waa isla annagu baa isla annagii yaa dejinay waktigeena annagoo ka faa'iiday. nin kasta wuxuu leeyahay war ma annagoo shirkaan isugu nimid maa dad hore shirkoodu waxay sameeyeen ay dejiyeen muu shir noo noqonay, ma yeeli karna ay leeyihin. marka waxa weeyaan maalin kasta waa la bedelaya. hadeertaanaa lagu murunsan yahay in haddana faqaraadkii wax laga bedelo, qaarna ay ku tumanayaan. marka waxaanu ognahay qof bani aadam wuxuu dejiyey baqaa ma laha. walidaalika inta ibliis adduunya soo martay nin kastaba sharci buu dejisaday, maca daalika maanta wax haray oo aan ilaahay sharcigiisa aan ahayn ma jirto. ilaahayna wuxuu ballan qaaday sharcigiisa inuu baaqi noqonayo ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha. marka waxa weeyaan waa tarayn socda, waa shareecada islaamka. ninkii doonana waa fuulaya oo waa ku guuraysanaa, meeshii rabana waa ku gaaraya. ninkii maalma gudbe-ana halkaasuu ku dhacaya, qiyaamana ciqaab baa sugaya ayaa ku dhacaya. marka adigoo muslim haddii aad tahay, kollaba waari maysida inaad shareecada islaamka ku dheganaatid, ood ayada aada difaacdid, ood caqiidadeedii iyo wax kasta aad qaadatid. miyaysan kula habbooneyn intaad adiga bani aadan oo adiga kula mid ee tajaarub ay sameeyeen intii cumrigaada ku cayaaraan, hadhowdii dambana ilaahay ay kaaga dhex baxaan oo wax aan kuu qaban karna ma laha. dad badanaa dad isku haleeyey. shaytaanka ugu weyn markii uu qiyaamada la tago khudba dheer oo akrinay oo wuxuu leeyahay waqaala shayطaanu lama qudiya alamru ina allaha wacdakum wacda xaqi wawacadtukum faakhlaftukum wama kana lii calaykum min sulطaani ila an dacawtukum fastajabtum lii falaa taluumunii waluumuu anfusakum. bal u fiirso, ninkii ugu weynay oo ummadda baadiyin jiray, maalinkaas asiga caqaabtiisa meelo taallaa waa og yahay. khudba dheer uu akrinay wuxuu le dadii habow ilaahay inaas wax buu idiin ballan qaaday, anigana wax baan idiin ballan qaaday. aniga awood ma lahayn, wan afka un baan idinkagala hadlay, amarkii ilaahayaad diideen, anigaad isoo raacdeen. marka maanta hadday saas tahay, falaa taluumunii waluumuu anfusakum, aniga macnaha aniga ha ii eedine naftiina eeda. maxaa yeelay anigoo anoon waxba idinku qasbin, anoon daliil idiin tusin, anoon wa maslaxa idiin tusin baad isoo raacdeen. ilaahaygii adinka idiin abuurtay oo sharcigiisa idiin dejina waad ka soo tagteene, marka adinka is eeda. maantana ciqaab baan u wada diyaarnahay, oohinta badan iska gaabiya buu leeyahay. marka haddii ay dhici doonto hadhowti dambo inaad ka shallaay doontid in shaytaanka dadka khudbada u akrinaya inaad ka mid noqotid, haddaad adduunyo joogtaaye war wax la huba qabso. intaasun baan aniga kugu dardaarmay. ayib, marka waxaan isweydiin leh oo aan u baahannahay in qofkii inuu yidhahda laga yaabo war sheikhu wax badan baad inoo sheegtay, oo haddee barlamaanaadkii iyo majaalistii golayaashii wax badan baad ka sheegtay. shareecada islaamka ah ma leedahay wax golayaashaas ama barlamaanaadkaas wax u dhigmo oo ka fiican oo annaga aan qaadan karno, oon xukumkeena iyo danteena annaga aan isku maamulno, oon shareecadeena nusuusteeda ku maamulno ma leenahay? in qofkii uu weydiiyaa laga yaaba. waxaan leehay nacam, shareecada ilaahay wax kasta waa laga helaya. shariidata qofkii inuu asiga uu go-aan ka tahay inuu shareecada ku camal falo.
ayib shareecadii marka shuuraa wax layidhahay leedahay shuuraa ama golaha shawrka ama waxaad rabta ku magacaaw shareecada islaamka golahaasay leedahay golahaas iyo miisaadka uu leeyahay iyo waxa barlamaanaadka adduunyada hadda ka jira wuxuu kaga duwan yahay un baan rabaa inaan wax yar kaaga sheekay shura waxaa la yidhaha sideedaba istikhraaju الra'yi bimuraajacati اlbacdi lilbacd waxa weeyaan ra'yigii fiicnay oo lala soo baxa ee lagula soo baxa dadka oo wada tashto oo ayaga ismuraajaceeyaan arrintaanaa dhacday maxaan ka yeelnaa qof kastaba laga hadal siiyo ra'yiga fiican markuu soo baxana la qaato kaasaa shuura la yidhaahda ayib shuuradii markaan maxaa daliil u ah bal u fiirso qur'aanka wuxuu u kala baxaa laba qayb qur'aanka maki iyo madani buu u kala baxa qur'aankii makiga ah ilaahay waxyaalaha aayaadka uu kusoo dejiye waxaa ka mid eh wاladiina اstajaabuu lirabbihim وأqاamuu الصلاaةa وأmruhum shurىa baynahum وmima razaqnaahum yunfiquun bal u fiirso markii mu'miniinta la tilmaamay waxaa layidhi waxay leeyihiin tilmaantooda inay rabbigooda ajiibaan ko inay salaadii ay dukadaan labo inay amarkoodana u dhexeeyo shuuro ay ku dhamaystaan saddex ilaahay wuxuu ku arsuqo xoolo uu siiyan inay wax ka bixiyaan sifaadka mu'miniinta marnaba aan laga waynaynin waxaa kamid a inay salaadii dukadaan in wixiisu lasoo gudboonaadane ay iska waraystaan bal u fiirso cahdulmaki waxaa la yidhahdaa waa cahdu taqriiri اlmabaadi'i wاlnadariyaat wاtasawuraat alxaqiiqiya alati laa tatakhallafu fi zamani min alazmina marka wakti kasta waxa jiro yay qarirtaa sida tawxiidka sida salaada sida akhlaaqa sida makaarim alakhlaq waxa dhan waa markaasaa ilahi wuxuu yihi mu'miniinta waxaa lagu yaqaanaa wa amruhum shura baynahum amar kasta oo ayaga u dhexeeya waay isla shawraan oo ay wada tashtaan baa ilahay yidhi waa taas waxa weyaan cahdigii makiga ahayd cahdigii madiinada markii ahayd oo cahdu الtashriic wالtandiim ahaydna ilaahay wuxuu ku yidhi washaawirhum fi اlamri yaa ilaahay uu ku yidhi subxaanahu wa tacaala nabigiisa nebi muxamedow adigoo nebi ahoo macsuum oo aan khata ku dhacaynin maca daalika sida dadka adiga ummadaada aada ugu jidaysid waxaad samaysaa lii wixii kula soo gudboonaadoo dhan saxaabadaada la tasho washaawirhum fi اlamri faidaa cazamta fatawakal cala allah marka calaamaadka amar bay ku timid washaawirhum fi lamri marka labadaas aayad len calaa sabiil mithaal ugu soo qaadanay nabiga calayhi salaatu wasalaam mushaawaraadka uu samayn jiray waan wada ognahay ninkii sunnada nebiga wax ka akriyo nebiga hadduu dagaal galay hadduu ummad inuu dacwo la fidiyo doonayo haddii inuu hawl qabto uu doonayo kulli saxaabadiisa intii hadba la joogto uu la tashan jiray waxaanu ognahay ghaswatu badrin meeqa buu la tashtay xataa markii ay hadleen dadkii muhaajiriinta ahayd uu nebigu wuxuu mar kastaba leeyahay ashiiruu calaya markaasay ay yidhahdeen ansaartii ilaahay rasuulkiisiu lakaanaka tacnii bina annagaad ba noola jeeda markaasuu yihi nacam markaasay hadleen ay ogolaadeen dagaalka inay qaadaan nabiga alayh salatu salaam aada ugu farxay maalinkii ghaswatu uxud la joogay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu ognahay inay talada asiga go-aankiisa ay ahayd in madiinada aan laga bixin dad baa yidhi ilahay rasuulkiisa nimankaas banaanka aan kula dagaalano ra'yigooda markuu saas ahay nabiga alayh salatu salaam waa ku raacay markii dagaalkii u dhacay ee muslimiintii markii dambe la jibiyey waxaanu ognahay lama dhihin waxay arrintan ku timiday mushaawaradii ay ku timid oy ayagu kula shawreene arrintaas hadda kadib mushaawara ha ka qaadin lama dhihin ilahay markaasuu soo dejiye wuxuu yihi washaawirhum fi lamri marka khalad kasta haddii lagu dhacataa laa ghinaa can lmushaawara in la mushaaware lagama maarmo saasay noqonaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka zawjadiisii caaisha ahayd oo aطayibatu طaahira markii la qadfay wuxuu la tashtay saxaabadiis oo cali usaama oo yihi warbixin iga siiya maxaan arrintan ka yeela xataa waa arrin yaroo qoyska ka dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kala tashan jiray sidaa daraaddeed abu hurayra wuxuu yihi maa ra'aytu axada akhara mushaawaratan min rasuuli illahi liasxaabih nabiga caadada lagu yaqiinay mar kastaba waxa weeya nebiga saxaabtiisuu kulmin jiray marka sidaas buu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ahaan jiray khulafadii ka dambaysay abubakrin iyo cumar iyo iskaba dhaafo waxaa dhici jirtay in mar kastaba xaadith uu yimaado inay shaam galay inuu daacuunkii markuu ka dhacay inuu shaam hore usii galay inuu kasoo noqdo
mushaawarow la sameeyey markii dadkii khamrada ay bateen inay cabaan mushaawarow la sameeyey in xadka lagu daro in kale waxa weeyaan wax la koobi kara ma aha inta ay mushaawaro ay la sameeyaan xataa rawa albayhaqiyu fii sunanihi ou yihi cumar ibnu khataab wuxuu ahaan jiray dadka markuu ra'yigooda weydiiyey xataa dumarka inuu weydiiyaa dhici kari lahayd oo haddii uu arka fii qowli imra'atin annahu maslaxa lilumma inuu qaada jiray baa dhici jirta markaasu wuxuu dhihi jiray haddii arrin timaado arrin dhacda a waaye oon caliyu bna abi aalibna aan loo haynin qadiyatun laa abaa xasanin laha saasuu dhihi jiray marka mushaawarada waxa weeyaan qof dham oo mas-uule oo maslaxad guud ummad u haayo aniga say ila noqda keligeedaan samaynaya ummadan kale wax ka soo qaadi maayo meel ay ka jirta ma laha maadaama nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam oo macsuum a layidhi saxaabadaada macnaha la tasho qof kaloo aan bani aadam oo anaga lamid ahayna waxa weeyaan min baabi awlaa ayib marka waxaan rabnaa inaan ogaano mushaawaradii maxaa xikmo oo ku jirto shuurada maxaa xikmo oo ku jirto xikmo badanaa ku jirto oo marka ugu horeyso waxa masaalixa lagu helayo iyo waxa mafaasid ku reebtoomaya iyaad ogaanaysaa maxaa yeele maadaama qofkii madaxweynaha ahay ousan ahayn qof macsuum oo khata laga ilaaliy ousan ahayn ay dhici karto inuu wanaaga iyo meesha maslaxada ku jirto ay ka qarsoonaato in wanaagii la helaa si kaloo lagu helayo ma jirto ilaa qofkii in la weydiiyo mooye ummadii ra'yigoodii la qaato oo ayaga aaraadoodii la weydiiye mooye sidaa daraaddeed yaa xasanulbasri wuxuu yidhi sidii bukhaari uu ku wariyey kitaabkiisa oo adabulmufrad la yidhaahdo oo aan saxiixa ahayn yaa wuxuu yidhi maa tashaawara qawmun qad baynahum ilaa hadaahum allahu liafdali maa yaxduruhum yani xasanulbasri ninkaa taabiciga wuxuu yidhi qowm ayaga wax isla showra ma jiraan waxa ayaga u dhexeeyo ilaa haddii la helana ilaahay wuxuu ku hanuuniyaa waxa ay raadinayaan waxa ugu fadli badan buu ilaahay uu siiyaa marka aharkaas ibnu xajar wuxuu leeyahay sanadkiisa waxa weeyaan waa qawi imaamu shaafici wuxuu leeyahay sida bayhaqi fi macrifati sunan walaathaar uu kaga wariyay sanadkiisa wuxuu leeyahay inamaa yu'maru alxaakimu bilmashhuurati likowni اlmushiiri yunabihuhu calى ma yakfulu canhu wayadulhu calى ma laa yastaxdiruhu min addaliil laa an yataqayada almushiiru fi ma yaquluhu faina allaha lam yajcal hada liaxadi bacda rasuuli illah bal u fiirso kalaamkaas imaamu shaafici baa dhahaya wuxuu leeyahay ninka xaakimka oo madaxda ee waxaa loo amray inuu dadka u la showro waxaa loo amray ninka wax oo la weydiina wuxuu kugu baraarujinaa waxaad ilowsan tahay wuxuu ku tusinayaa daliil inuu kaa qarsoonaada laga yaabo macnaheedii ma aha laa liyuqallida almushiiru fi ma yaqulu ama laa liyuqallada almushiiru ninka wax mushiirka oo wax kuu ishaara in la taqliidiyo wax allaale wuxuu ku yiraa in la qaata ma aha maxaa yeelay fa ina allaha lam yajcal hada liaxadin bacda rasuuli illah nin oo laleeyahay nin heblow baa saan yiri waa in la qaata ma jirto laakiin ninkaan sidaanuu yidhi ninkaan sidaanuu yidhi ninkaan sidaanuu yidhi marka laysku dardaro waxaa laleeyahay dadkii waxaa loo batay ra'yigan oo waxay caddeeyeen inay maslaxada sidaan ugu jirto waxayna ku cileeyeen kayta wa kayta sidaasaa lagu qaadanayaa mooye la dhihi maayo fulanoo la yaqiinaa yiri intii kale wax kasoo qaad male la dhihi maayo maxaa yeele ninka laleeyahay fulana yiri waa rasuulka ilaahay oo aan laga daba hadli karin calayhi salaatu wasalaam marka shuuradii markaa fawaa'ida ay leedahay maxaa ka mid fawaa'ida ay leedahay waxaa ka mid shuurada ummaddii markii xadath dhacay ama wax dhici rabo inta lala showro ay tala ka bixiso taladii ay ka bixisana lagu dhaqaaqo haddow haddii wanaag ka timaadana khayrkaas wax bay ka leedahay ummaddii haddii dhib ka timaadana ninkii madaxda keligiis la eedi maayo waxaa laleeyahay adinkaba waan idinla tashtay ra'yigaan adinkaa gaarteen anigana kii aad gaarteenan fuliyey marka ummaddii waxa weeyaan raalli bay ku tahay haddii maanta la yidhaha dagaal aan galno dagaalka haddii madaxweynaha ama ninka madaxda keli uu dhihi lahay dagaalan aan saxiixay hore ha laga galo haddii hadhow ay dhacday in lagu soo jabo ummaddii waxay ku eedi lahayd dagaal aan u diyaar garoobin ra'yigeenin annaga haddii aanan la qaadanin meeshii iyo waktigii ku habboonayna aanana weydiinin baa la qaaday dhibaatadaana dhacday laakiin ummaddii haddii in la kulmiyo dadkoodii cuqaalka oo ahlulxalli waalcaqdi lagu magacaabo markay ka tala bixiyaan hadhow haddii ay wax ka yimaadaan ummaddaas ma eetamayso liannahu ra'yiga ayadaa wax kulaba
marka waxa weeyaan washaawirhum fi lamri aan joognaa annaga ma ah dimuqraadiya iyo dadkaasaan yidhi ma ah waxaan joognaa washaawirhum fi lamri asal dhan baan haysanaa oo ilahay kitaabkiisa qayb weeyaan taas. midda labaad waxa weeyaan mushaawarada waxaa ku jirto tatyibun likhaatir lumma ummaddii in qalbigeedii la saafi gareeyo in ayada aysan ahayn wax muhamash oon macno lahayn. tatyib waxa weeyaan markii la yidhaahdo arrintaana nala soo gudboonaaday maxay nala tahay waxay dareemaysaa ummaddii ummad karaamadle inay tahay inay mustaqbalkeeda iyo masiirkeeda ay ka tala bixinayso. marka sidaa daraaddeeda waxay leedahay hadhowti daba markii lala weydiiyo ayada way ku farxaysaa waxa leeyahay ninkan waa na qadariyey waayo wixii annaga aan hadhowti dhibkeedana soo gaari lahay oo dhan waa nagala tashtay bay leedahay. taasna faa'iideeday ka mid tahay. waxay ka mid tahay min fawaa'idiha waxaa ka mid eh ummaddii inay noqoto ummad caqligeeda ka shaqaysiiso markay ogaato dhacdo kastoo dhacdo in dadkii mas-uuliyiinta ahay ummaddii ay la tashanayso wax kastoo dhaca waxay isku tasawuranayaan ay xaawilayaan inay ogaadaan sidii arrintaas meesha saxda iyo waxa laga geli karo iyo waxa laga tala bixi kara intay la eg tahay inay ogaadaan daraaddeeda nin kasta wuxuu isku dayaya inuu fahmo waxa dhaca iyo in sida looga bixi lahay ugu habboon iyo sida ugu habboon oo loola dhaqmi lahay. marka ummaddii waxay noqonaysaa ummad caqligeeda iyo kayaankeeda ka shaqaysiisa. haddii ay tahay laakiin ummaddii haddii laleeyahay ninkii madaxda keliya u hadlay adinka wax macno aad leedihiin male haddii la dhihi lahay waxay leedahay wax kastoo dhacaba annaga wax naga qoseeya ma laha go-aankii dawladda unbaa iska haysata annaga waxaan ka nahay ma laha taasay dhihi lahay. dayb marka waxaa inoo xigo majaalaat listishaara. istishaarada markaan intay gasha bal u fiirsa markaan waxa weeyaan inay istishaaradii mashruuceedii faa'iidadii xikmada ay leedahay waxa ka laazimayan kuu sheegay. maanta waxaan rabaa inaan kuu sheego istishaarada intay geli kartaa. waa meesha keli ah waxa barlamaanaadka iyo maxaan ku idhaahdaa kongareesyaasha waxa lagu magacaabo iyo shuurada islaamka waxay ku kala duwan yihiin oo meesha tan ah. majaalaat listishaara maxay tahay waa meesha keliya oo laysku khilaafsan yahi. bal u fiirso majaalaat listishaara waxa weeyaan kow fi lumuuri almubaaxa umuurta bannaan hadday laba shay ay nala soo gudboonaato oo ina midkood inaan qabanna aan doonno ninkii madaxda noo ahay ama mas-uulka ahay waa nala istishaaraysanayaa oo waxauna weydiinayaa war labadaan arrinaa soo gudboonaatee maxaan ka yeelayaa inoo fiican. walidalika alimaamu albukhaari wuxuu yiri fi tafsiiri qowli llahi tacaala washaawirhum fi lamri markuu soo bixiyey wuxuu yiri wakanat ala'immatu min bacdihi yastashiiruuna alumanaaa min ahli اlcilmi fi lumuuri almubaaxati liya'khuduu biashaliha. bal u fiirso umuurta mubaaxada oo bannaan markii la yidhi waxaa meeshaas ku baxay wax sharciga islaamka ou xallilay ama ou xarimay in shuuradii la keeno ama barlamaankii la keeno la yidhaha maxaan ka nidhaahdaa waa edebdara iyo gaalnimo weeyaan. hadda calaa sabiil mithaal haddaan ku nidhaahdo haddii aan muslimiin aan nahay oon golo shawr aan samaysano la keeni maayo golaha shawrka ah nin tuuge hadduu waxado oy markhaatidii ku caddaato gacantii ma la goynayaa mase waa la dhaafayaa shawrka la keeni maayo. waxaan loo keenaynin arrintaas ilaahay baa cadday xugum sharci bay leedahay qof bani aadam la weydiin maayo ama ha badneedeen ama ha yaraadeen. waa nuqdada koobaad oo muhimkaa ay u baahan tahay inaad ogaatid adiga muslim markaad tahay in meesha adiga aad tala ka bixin kartid iyo meesha aad tala aadan ka bixi karin inaad kala ogaatid waay. bal hadda ogow hadhowtii dambo haddii ay dhacdo ama ha dhawaato ama ha dheeraatee barlamaanaad haddii ay waddankan timaado oo hadhowtii la yidhaahdo gabadha xijaab ma qaada kartaa ninkii zinaysto ma waxaan dhihi doonaa qofkii khiyaarkiisa u zinaysta asagaa khiyaar leh ninkii khiyaarkiisa aan u sinaysanoo la qasbane taas unbaa maxkamadda la geynaya. ninkii tuuga waxado 2 sano maan xirayna mase 4 sano aan xirayna taas waxa weeyaan islaamkii bay kasoo horjeedaa. shawrna ma aha barlamaanna ma aha waa tuuga meel isugu timid weeyaan. ilaahay sharcigiisa wuxuu caddeey ama uu xallilay ama uu xaaraan ka dhigay ama uu xalaal ka dhigay wax tala bixin ugu baahan ma aha. marka sidaa daraaddeed
yaa ibnu xajar fii kitaabihi fatxilbaariya wuxuu ka soo guuriyey ninka imaamka addaawuudi la yidhaahdo man zacama ana الnabiya kaana yushiiru aw yushaawiru fi اlaxkaami faqad gafala gaflata cadiima buuri ninkii maleeyo ama yidhaahdo nebiga saxaabadiisa ou la tasha jiray axkaamtii ilaahay uu xalilay ama uu xarimay ou laka tasha jiray ninkii u yidhaahdo ninkaas aad buu wax u iloobay buu yidhi marka waa inay ahaataa kow fi lumuuri almubaaxa waxa loo fiirinaya waxa weeyaan ummadda yaa usii sahlan oo u fiican oo maslaxa ugu imaanaya waa kow. midda labaad oo istishaarada ay bannaan tahay alaxkaamu alatii taطra'u fi lmujtamac walam ya'ti fiiha nasun min annabiy sala allau alay wasalam walaa min kitaab illah. arrin baa dhacday oo xugum sharci u baahatay markii ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadii laga fiiriyane nas gaara looma helin. marka waxa weeyaan dadkii oo ahlu cilmiga ahay ahlul amaanada ahay inta la kulmiyo yaa waxaa la weydiinayaa war arrintaanaa dhacdaye bal nin kasta ha ijtihaado oo xugumka oo ugu habboon oo shareecada maqaasideeda iyo ulajeedadeeda waafaqayo waa in la soo saaraa. saasaa laleeyahay waxa weeyaan sidii nabiga alayh salatu salaam dad badan markuu weydiiyey maxaad ku xukumaysaa bikitaab illahi haddaadan ka helin fa bisunati rasuuli illahi haddaadan ka helin ajtahiduu fii ra'yi buuri. sidaasaa marka ummaddii waxaa la rabaa qof keligiis intuu ijtihaadi lahay in laysku daro ijtihaadki oo ummaddii laysu keenaa la doonaya. bal u fiirso marka dhacdadaas oo kale ay timaado waxa weeyaan waa istishaarada way bannaan tahay. waxaa lamid oo midda saddexaad ah oo ay bannaan tahay in tatbiiq aw munaasabatu dhuruuf walaxwaal litadbiiq nusuus alcaama. maalan hadda waxaanu ognahay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa jihaad buuna amray. marka jihaadki waa caam, ilaahay ma dhihin bil kasta sanadkii markii ay tahay bisha shacbaan maalinta ay taas tahay dagaal hala qaado ilahina ma dhihin. sidii ramadaanka oo kale bisha ramadaan markii ay timaado ilahay wuxuu yihi waqtigaas hala soomo, waqtigaas zakada hala bixiyo, waqti go-ana noola qabtay. laakiin jihaadki iyo waxyaalahaas oo dhan waxawaa nusuus caama ah oo duruufta jirta un baa loo fiirinaya. marka taas waxaa loo samaynaya golaha istishaa oo showra lasoo dhex dhigaya oo waxaa laleeyahay ummaddii inay dagaal ay qaado oo xaqeeda soo dhacsato ama ummaddaas ay dadka ay ka fujiso oo ay ka celiso ma hadda ma habboon tahay ma sameye. labadaas dawlad baana soo gal darsatee ma labadooda hal mad baan dagaal ku qaadnaa mase mid kamid aan hormarina. haddii aan horumarinayni teenka aan ka bilowna naskii ilaahay uuna amray adeegsigiisoo la adeegsanay oo laga tala bixiya taasna la yidhahda. marka wax inkaas oo kale ah yaa la yidhaahdaa majaalaat listishaara. laakiin wuxuu ilaahay xarimay la dhihi kari maayo maanta aan fiirinoo ma xalilana. haddii aan idhaahdo war ina anaga hadirtaan baarlamaanka ha loo bandhigo khamradii ma la gedi karaa oo meelaha maxaan ku idhaha dabakaayinka ma la dhigi karaa mase lama dhigi karo, ama ha laysku waafaqo ama aan laysku waafaqin ilaahay sharcigiisa xaaraam ay ku tahay. barlamaanaad sheegaysaa haddii caalamka inta ka jirto o dhan isku waafaqdo sharciga ilaahay wax ku xalaal oo ku xaaraam u xalili kara ma laha. sidaa daraaddeed macno maba laha, way ku dambaabayaan, islaamkay ugu baxayaan, ayaga unbaa ku khasaarayo haddii qof bani aadam guul uu ku garayo. sidii siyaad bara aayaadkii faraa'idka ahaydoo naqiinay dhaxalkii markuu yidhi dumarka aniga u gargaarayaa buuri. maxaa yeele nebi maxamed dumarka intuu soo qaaday iyo raggii labuu barkoodii keenay, annagana inta kale dhamaystirnay buu yidhi. markaasaa wuxuu yidhi markii dhaxal laga hadlay annaga ma aaminsanin wax thuluth iyo sudus iyo rubac. markaasuu mubaalagatan fi lihaana wuxuu ku yidhi waljinina ma aaminsanin. oo aayaadkii ilaahay buu ku jeesjeesay. dadkii way usacba dhoween, waa la wada ogyahay wixii golaha kula jiray, wixii dawlad u ahaayo qalbiga iyo qalbiga ka raacsanay oo dhan meeshaasay ku gaaloobeen. ninkii asiga cabsanayay oo cabsi u geysay ee aanan ogolayne waa nebiga. ninkaas waxaa adcafu liimaan, qalbigiisou ka inkiray. ninkii diiday ee gacanta u taagay ee ku adkaystay ee lagu dilayne waa nin guulaystay. waana wada ognahay wixii dhacay. marka shareecadii islaamka hadda siyaad bara waa dhintay, faraa'idkiina waa kaasaa meesheeday kusoo noqotayo maanta waad arkaysaa ummadeennan hadday wax inay rabaan inay dhaxal siiyaan habeen iyo maalina lagu imaanaya waxaa lagu leey sheekhow sidii aan u dhaxli lahayn aabaheenaa dhintee shareecada islaamka wax nooga sheeg. marka waxaana ogaanay qof bani aadana waxay isku waafaqaan iyo waxay diidaanba xukumka ilaahay
wax kama bedeli karaan. taas inaad adigu ku xisaabtantid weeyaan. adiga unbaa meel isaga dhec samaynaysid mooya sharciga ilahay waxba ka bedeli maysid. ayib marka haddana nuqtada labaad oo ay isku khilaafsan yihiin dimuqraadiyaadka barlamaanaadka ay qabaan oo ay leeyihiin iyo shareecada islaamka majliskeeda oo majlis shuura la yidhahdo waxay ku kala duwan yihiin. oo labaad waxa weeyaan dadka oo mustashaariinta noqonay yaa la shoor weydiinayaa, yaa tala bixinay. waxa weeyaan anagu waxaanu ognahay caalamka waxaa ka jiro ninka ugu lacag badan, ninka ugu qabqablo badan, ninka ugu tuugsinimo badan, ninkaasa dadka sawdiyaalkeeda intuu ku guulaystaa barlamaanka soo gelay. hadhow marka qadiyo kastoo timaado waxaa leeyahay barlamaanka ha loo cardiyo, asigaabaa ka tala bixinaya. islaamka saas ma ah. taasna waa midda labaad ee ay kaga duwan tahay shuura fi lislaam, waxyaalaha jiroo dhan ay kaga duwan tahay. oo waxaa laleeyahay dadka mustashaariinta noqon karo oo talada bixinaya laba sifa laga rabaa inay lahaadaan, laba sifa keli ah. sifada ugu horeyso dad cilmina inay yihiin. cilmiga marka waxa weeyaan cilmigii sharci ahay iyo cilmiga waxa laga tala bixinaya ah. bal u fiirso mathalan haddii ay maanta noqoto in dhaqaalo laga hadlo ummadii abaar iyo wax baa lasoo gudboonaaday, waxaanu leenahay waxaan u baahannahay dad ahlu cilmiga oo sharciga islaamkana wax ka garanaya, dhaqaalaha khabiiriinna ku ah oo ikhtisaadkii iyo maxaan ku yidhahda sida wax loo dhaliyo, dhaqaalaha sida wax loo dhaliyana wax ka yaqaan. marka waa nin khabiirna ku ah cilmigii sharcina wax ka yaqaan. dagaal bay noqotay in la galo, waxaa laleeyahay waxaan u baahannahay nin oo sargaal ah shariicada islaamkana ku dhaqmayo, culumtii dagaalka oo waktigan jirana wax ka yaqaan ayaa loo baahan yahay. cilmiga marka waxa weeyaan cilmigii sharciga ahay iyo waxa istishaarada lagu weydiinaya nawciyada cilmigeeda gaarka ay u baahan tahay. labadaas cilmiga isku leeyihin. midda labaad waxay u baahan tahay alamaana, liannahu nin cilmi badan haddaad adiga aad weydiisid istishaara ama aad la shoor weydiisid, waxaa laga yaabaa inuu sida wanaagsanna uu garanay, laakiin adigu intuu kugu xumeeyo wuxuu leeyay ninkaan god ku rid, liannahu amaano ma leh. markaasaa waxaa laga yaabaa meel aad ku baaba'diday ummadii ku lugooda inuu ku ishaaray, adigana aad leedahay ninkaan cilmi buu yaqaanaa, waxaan asaa yaqaane asiga ha ii fuliye baad leedahay, oo markaa ra'yigiisaad qaadanaysaa. marka qofkii waxaa la rabaa alcilmu والأمانة inuu kulansado. ayb sidaa daraaddeed bal hadalkii bukhaari oo hore uu soo yiri bal ogow, kaanat الأئمة min bacdihi yastashiiruuna الأmanاء min ahli الcilmi, saasuu yihi. imaamu الbukhaarina yushaawiru ahla الcilmi والأmaanة yuu yihi, bal iskuma khilaafsana. sidaa daraaddeeda lafdi kalaa ummadda ay keento waxaa la yidhahdaa ninka cilmiga iyo amaanada kulmiya waxaa lagu magacaaba ahlulxalli walcaqdi aa lagu magacaaba. hadalkaas wuxuu kuu keenayaa ummadda markii la rabo in loo hadlo, ummaddii markii la rabo masiirkeeda dambe in laga sheego, waxa uu hadlayo ama u tala bixinayo dadka ahlulxalli walcaqdi ah oo loola jeedo ahlulcilmi walamaana loola jeedo. ma aha nin kasta oo hadli karo, nin kasta oo nin karmeed ah, nin kasta oo dad layn badan. wax ilaahay agtiisa ay qiimo kuleeyihiin ma jirto. nin ilaahay ka cabsanayo oo ammaano leh oo taqwo leh iyo nin waxa la weydiinaya wax ka og oo cilmigii sharciga ah iyo cilmigaasba wax ka og, labadaas qofooda la rabaa. annagana caalamka waxaanu ognahay, annaga sida aan nahay unbay ka yihiin caalamka dhane. ilaah baan idinku dhaariyay waxa barlamaanaadka hadda lasoo macnaha dhoobay oo hadda Kenya lagu dhisay, dadka inoogu jiro hadeertaan barlamaanka sheeganayo badigood muxuu idin leeyahay? bal u fiirsada, waa xaqiiqa dadka la og yahay. inta barlamaanka gashay waa in cadow ay dooratay, ummadda in lagu baabi'iyana la doonayay. intaas unbaa la geli barlamaankii. marka ma dhici kartaa inay noqdaan dad ahlu cilmi walamaana? ma noqon karaa. annaga ma dhehayno inta barlamaanka wada gasho dhan waa xuntahay, kala waxaasha, arrintaas ma jirto. oo isaa'atu dhanni ma aha, laakiin dad fiicanaa ku dhex jiraan, niyada ugu jiraan ay tahay ummadiina khatarta ku waajahan inaad ka difaacdaan. shareecada islaamkaana waxaad u qaban kartaa intii karaankeena. ma banaan tahay saas barlamaan in lagu galo, iyo ma banaana mas'alo kale oo u baahan ayada waktigeeda weeyaan. laakiin dad badan oo aan naftoodii dayacay oo waxay ayaga naftooda u tarayaan aan jirin yaa barlamaanka noogu jiro.
sidaa daraaddeed shuruudii dhammayd maba buuxin karaa, wax qiimo ay leeyihiin ma jiraan. ayib sidaa daraaddeed waxa weeyaan nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu sheegay kama fi xadiidi abi saciid alkhudri cinda albukhaari ma bacatha allahu min nabiyin wala اstakhlafa min khaliifatin ila kanat lahu biطaanataani biطaanatun ta'muruhu bilmacruuf wataxuduhu calayh wa biطaanatun ta'muruhu bishari wataxudu calayh falmacsuumu man casama allah. sidaas buu nabiga xadiidkaas fi saxiixi albukhaari ku jiro uu yihi waxaa noo caddaatay qof kastoo muslim ah kama maarmo laa yastagnii mu'minu can mushaawarati. waxaa weeyaan xataa ahar baa saas ku soo aroortay. nebigu wuxuu yihi nin kastoo ilaahay nebi uu soo diro iyo nin kastoo nin ummadda madax looga jiro ma jiro ilaa wuxuu leeyahay laba la taliyaal. bitaana waxa weeyaan waa midda hooseynto talada hoose ku hayso, mideed waxa waaye macruufkana way fartaa wayna ku boorisaa oo qabsabay tirahdaa. bitaano kale ama fariiq kalene waxaa lagu yaqaanaa sharka yay amraan wayna ku booriyaan in la qaato. markaasuu nebigu wuxuu yihi falmacsuum man casama allah, ninka dhowrsan waa nimu ilaahay dhowra oo marka horeba waxa weeyaan markuu waxaan gelayaba ilaahay dartiis iyo ummadda maslaxadeeda u gelaya, uma gelaya dantaada qaado, ummadda ha kaa dambayso madaxnimo ha kaaga dambayso u geli maayo. ayib sidaa daraaddeed baa waxaa lees weydiiyey haddii golo shawr aan samaysano shareecada islaamka shuuradaas ma wax allaale waxay soo saarto in madaxweynaha jira inuu qaato ma ku qasban yahay oo shuuradii mulzima miya, mase waa muclim oo inay ka tala bixiso oo madaxweynaha markii talada ka bixiso hadduu rabana uu qaadan kara hadduu raban iska dhaafi kara miya. markii xaqiiqada loo laabto waktiga aan joogno iyo siday wax u dhacayaanna la fiiriyo nusuusta caamka in la qaatane macnaheeda waxa weeyaan golo oo ahlulxalli waalcaqdi haddii aan dooranno oo sifaadkii fiican laga helo waxay ka tala bixiyaan in la qaato waajib ay noqonaysa. maxaan u leenahay marka hore waxa weeyaan shuurada haddii aan wixii lasoo tala bixiya aanba la qaadanin macno ma yeelanayso, ummaddii karaamadeedaba looga dhacaya. haddaan ummaddii intan ila arrintan kasoo tala bixiyo oo 10 maalmood oo dhan ay u fadhiyaan, maalinkii ay tala soo saaraan an ilah waxaas waa diiday aniga waxba iima yaaliina taydaan qaadanaya, maxay kuna noqonaysaa arrintaas ayada wax saxa ma ah. waxay khilaafsan tahay waladiina istajaabuu lirabbihim waaqaamuu salaata waamruhum shuuraa baynahum bay khilaafsan tahay. ko midda kale amarkii ilaahay washaawirhum fi lamri, haddaan mushaawaradii la qaadanaynin in lala shawraa lays amraa wax macnaa ma yeeshanayso. sidaa daraaddeed maadaama nebi moxamed uusan mushaawaro u baahnayn waxa uu weydiina ay tahay inuu ummadda u jidee yaan waxaan leenahay haddii golo shawr inta la sameeyo ay tala bixiyaan, haddii taladaas tala ka fiican ummad kale ay keento mooye intaas layska tooro la yihahdo madaxdii anigaa waxaan raba qaado kara ma jirto, taas ma dhacayso. ayib waxaa lamida sidaas oo kale a'imada xadiidka oo siirada nebiga sunada wax ka yaqaano waxay yidhahdeen maa shaawara nabiyu sal allau alayh wasalam asxaabahu uma taraka mushaawaratahum ila an nazala waxyun. sidaasaa nabiga sifiis lagu yaqiin mal allaale markay nabiga la shooru ay weydiiyo wax allaale waxay ay ku ishaaraan nabiga waa qaada jiray ilaa waxyi inuu soo dejiyo oo ilaahay soo dejiyo oo la yidhaha arrintaas khilaaf mooye. sidaa daraaddeed yaa waxaanu leenahay haddii golo shawr ee shuruudii ou lahay ou buuxsamo loo sameeyo in la qaato waajib weeyaan, oo waxaan leenahay ashuura mulzima oo in la qaata waajiba. marka waxaan ku khatimayaa hadalkaygi oo aan rabaa cinwaankii aan ka soo bilaabay aladilatu almuttafaq calayha almuxtaju biha aan rabo maanta inaan ku khatimo. war shareecada saas u wanaaga badan oo adduunye iyo aakhiro inooga sheekaysa oo intaasoo badaa'ilho wanaag badan ay ku jirto inaan iska tuurnoon annaga aan wixiina iska qaadano maxaa nagu kalifay. taas bal waxaan jeclaanahay ummadda in isweydiiso wixii aan usoo sheegnay nin kastaba waxa weeyaan inta aad ka ogtihiin intaan idiin sheegay way ka badan tahay. hadday saas tahay maxaa inagu kalifay in shareecada ilaahay mar kastaba aan la dagaalano oo waxaan jirino maalin kastaba aan dusha iska saarno. jawaabta waxa weeyaan kow waxaa ugu horeeyo ummadda jahligeeda. shareecada islaamka iyo wanaageeda horta wanaag yaaba garta, horta nin yaqaano unbaa garto. mushkilada jirta shareecada waxa weeyaan gacanta idinka goynay, gabadhii waa la garbaashaa, wiilka madaxa laga jara unbaa nagala baray. shareecada waxyaalaha badaa'ilka iyo wanaagyaalka arrintaasayna ku dhicin ay ugu tala gasho horta ma la ogaaday.
ma jirto waay. taas waa mushkilada meesha ka jirta weyaan. waxaa arrintaas saaciday isticmaarkii dhulka muslimiinta 200 sano haystay yaa wuxuu sameeyey inuu islaamkii suuradiisii iyo wanaagiisi oo dhan ou baabi'iyo meelo xunxun ou asiga ka fahmay islaamka aanan ka mid ahayn inuu ummadii ka tusiyo u yihahdo shariicadiina waa tanaa sidaasay u dhib leedahay inuu yihahdo uu tusiyo. waa midda labaad. midda saddexaad waa ummadda waxa horyaalka u ah oo aan naqaano dadka muthaqafiinta ama maxaan ku yidhahdaa wax aqoonka dadka lagu yaqaano oo la yidhaahdo ummadda horyaalkooda ay u tahay. waxaanu ognahay ummaddii markay xorowday in gaaladii dhulkeeda ay wax ku soo barteen marka ayagoo fikradii gaalada watay inay ummaddii ay ku dhaadhiciyeen ayagoo laga soo dhariyey shareecada inay diidaan. midda afaraad waxaa ka mid waxyaalaha keenay in shareecada islaamka iyadoo wanaagyaalkaas qabta inaanan isku dabaqin oon annaga ka cararno. dadka madaxda noo ah waxay aaminsan yihiin haddii shareecadii islaamka isku dabaqno caalamkii dhan baan ka go-aynaa, musaacadaad iyo dhaqaale waxna siinaya male, sidaa daraaddeed gaajaan u dhimanaynaa, wax noo soconaya maleh. waa caadadii hore ay u yaqiineen dadkii gaalada ahayo islaamka ay dhihi jireen ilaahay uu ballan qaaday oo yiri wain khiftum caylatan fasawfa yugniikum allah. haddaad isleedihiin shareecada haddaan qaadano culaysaan ugu imaanay ilaahay baa noo ballan qaaday. ayaga waxay leeyihiin haddii aan shareecada qaadano dhibaato waaweyn baa nagu dhacayso, marka waxa weeyaan meel aan aadan ma laho facasaa. waxay leeyihiin in nakhsha an tusiibana daa'ira, inay arrintana la dabagodoontaan ka cabsanaynaa. arrimankaas oo isku darsan yaa sabab waxay u noqdeen in shareecadii islaamka wanaagyaalkaas ay qabto annagana raalli ku nahay maanta in nafteenii dhiiggeena aan u hurno in ayna aanan isku dabaqin. arrintaasaa qayb ka way badan yihiin qaybyaalka kale. mawduucaas marka sidaasaan ku xirayaa. waa raqamkii ugu horreey oo 14 maalmood noo soo socday. wallahu aclam. sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed.